waa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha aqbalada gogoshaas iyo madaxweynayaashii dawladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay ugu muhiimsanaa kulan uu shirgudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka Puntland sidoo kale ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiintii xubnaha ka ah dawladda federaalka madaxweynayaashoodii madaxdii hore barnaamijyadeedii hore madaxweynayaashii hore ee Puntland iyo madax kale oo runtii ku sugnayd goobta sidoo kalena waxa ku weheliyay barnaamijyada ku-xigeenka oo wafdigiisa kamid ahaa waxa kulankaas looga wada hadlay gogoshii dawladda Puntland ay u dhigtay in arrimaha Soomaaliya guud iyo kuwa gaarka ah muddooyinka soo socda looga arinsado wuxuu madaxweynuhu runtii soo dhaweeyay gogoshaas wuxuuna ku baaqay in gogoshaas Garowe la qabto wuxuu sidoo kale Prime Minister ku-xigeenka uu xil saaray diyaarinta ajandaha gogoshaas looga hadlayo kulankii xigay markuu tagay kadib waxaa la falanqeeyay ajandayaasha hortaminta u leh in munaasabadaas lagu soo bandhigo gogoshaas looga wada hadlo oo u gudbiyo madaxweynaha si uu soo xadido waqtiga ku haboon ee gogoshaas looga falanqeyn doono arrimaha hortaminta u leh Soomaaliya insha Allah waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha aqbalada gogoshaas iyo madaxweynayaashii dawladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay u soo wada dhaweeyeen waxaan u rajaynaynaa Ilaahay idankiis marka uu madaxweynuhu xadido waqtigeeda inay gogoshaas Garowe ka dhacdo marxaladaha adag ee ku soo foolay qarannimada Soomaaliya iyo wadajirkeeda iyo horsocodkeeda iyo isbedelada gobolka dhacayaba ee u noqoto qodobo muhiim u ah waxaan rajaynayaa gogoshaas inay noqoto mid miro dhasha waxaan u rajaynayaa fuuda iyagoo nabad qaba hadda ku tagay Garowe uga noqday in iyagoo nabad qaban ay ku soo noqdaan ay ka soo baxdo qodobo masiirka iyo dalka iyo dadka wadan u ah haddaan reer Puntland nahay aan ku hadlayo magaca dawladda insha Allah waxaan u diyaar garoobeynaa qabashada gogoshaas waan u rajaynaynaa guul oo aan u rajaynayno inay noqoto qodobo muhiim u ah dalka iyo horsocodkiisa waa mahadsantiin